Bismillahirrahmanirrahiim waxaan oo wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta Naafic Show. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Israa'iil Naftali Bennett ayaa war lala yaabo warbaahinta ka sheegay Turkiga waa Iiraanta cusub waana khatarta ugu weyn ee Israa'iil ee maanta wajahayso ayuu leeyahay. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxa uu ku xiray mustaqbalka xiriirka Itoobiya iyo Turkiga sida uu Turkiga gacan ugu siiyo Itoobiya inay hesho maranbadeed inta ay ku jireen shir jaraa'id oo ay wadajir Addis Ababa ugu qabteen Erdogan oo shalay booqasho ku tagay Itoobiya. Abiy waxa uu yiri waxaan ka rajaynayaa walaalkeen Erdogan inuu gacan inaga siiyo gaaritaanka maranbadeed. Erdogan ma awoodo inuu Itoobiya marinbadeed ka siiyo badda Turkiga taa beddelkeeda waxa uu Abiy tixraaciyaa dhexdhexaadintii Turkiga Soomaaliya iyo Itoobiya oo ballan qaadaysa in Itoobiya ay hesho dekedo ay adeegsato. Baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo. Hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto waxna lagu barto laguna safro adduunka oo dhan. Haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifiya oo furan barashada luqadda Ingiriiska waa furaha kuu horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn. Macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow, dhexdhexaad iyo dhammaystir. Koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kuu baraya macallimiin xirfad leh iyadoo xoog lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh, qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah, maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer, xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan. Haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo ku horseedo ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp ee hoose.